Soomaalidu waxay ahaan jireen dad astura ceebahooga qariya war inantan ka daaya fiidiyooga halka yara clip ee xunad sii faafinaysiin adduunyadii meel walba dhigteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa walaashini bilkacso inale kusoo dhawaada channelkayga mar walba qalbi furan hay maxaan isku soo horfadhinaa maxaan isku waaninaynaa maxaan is oranaynaa maanta waxaan halkan usoo fadhiyaa arrin xasaasiya arrin murugale arrin naxdin leh arrin aniga iyo ummadda muslimka iyo ummadda soomaalida intaba naga naxisay hadaba intaynu sii gudagelay arrintaasi niguna dee wax badan aynu kasii ogaan ha ilaawina channelkayga inaad like garaysaan share garaysaan commentigiina insha allah hoos igu reebtaan subscriberskana bam akhrisna insha allah haddaba waxaanu sii gudagalnaa arrinta waxay ku saabsan tahay walaasheen Cayuuni Qurux Cayuuni sidaynu wada ognahay waxaa ku dhacday arrin aad u foolxun arrin waxaa ku dhacday laga argagaxo arrin naxdin leh aniga hiba ahaan aad bay iga naxisay kulay gabadh walba oo Soomaaliyeed oo jiirkaasi uu ku yaalo waa u damqanaysaa walaasheen haddaba sababta ay ku dhacday weli hal qof oo ma jiro laakiin saynu wada aragnay video aad u foolxun oo jirkeyga qaybo ka mid ah ay bannaan yihiin ayaynu wada aragnay videogan ma rabo inaan tuso because aniga haddaad jirkeyga aragto iyo walaashay jirkeyga haddaad aragto labaduba waa isku mid haddaba qofkii sidan sameeyayo maxaad u samaysay maxaad kuu kalifay inaad samayso waxaad tahay walaalkayo waxaad tahay wiil Soomaaliyeed uniyo inamadii Soomaaliyeeday anaga waa nala dhalateen waana ni dhalnay aabbayaashayaa tihiin waxaad tihiin dadka nolosha la wadaagayno maxaa sababay inaad sharaf walaasha aad hoos u liido qaladku uma riixaya xagga inamada uune xataa waxaan riixaya xagga gabdhaw waxaan nii sheego sinaan nafteeda isku waaniyo ayaan inagana nii waaninaya uniyo waxaa la yidhi laxba meesha ay isdhigtaa lagu qalaa bay Soomaalida oran jira ma filaya war adigu ninkan ama xiriir hayniga dhaxeeyo ama wax kale hayniga dhaxeeyaan maxaa sababay inaad jirkaaga qayb ka mid ah tusto ilaahay kuma baneyn ninkaagi maaha maxaa sababay inaad maxaan ku raadin intaad jirkaaga qaawiso aad isaga tusto adiga jeclaystay in meel walba lagu dhigo marka taa waxaysto war adigaan ku sheegaya niyo maxaad u samaysay waxaasi maxaad walaasha macaan hooyada macaan inaad hadali doonto xaaskaaga noqon doonta maxaad sharaftooda ugu ciyaartay inaan yaho Soomaaliyeed ama inama yaho Soomaaliyeed markaad ku ciyaartaan hal inaan sharafteeda waxaad ku wada ciyaarteen hablaha Soomaaliyeed ee adduunyada dacal ku nool sharaftooda ku ciyaarteen maxaa sababay inaad ku ciyaarto anigu wallahi billahi dareenka aan inagula hadlay iga soo baxaya maahan dareen maxaan ku raad afkayga kaliya ka soo baxaya waa dareen qalbiga ka soo baxaya war anagu waan ni dhalnay inagama maarano nagamana maarantiin haddaba waxaan leeyahay walaasheen dhibaatadaas ku dhacday ama iyadu sabab ha u ahaato ama qofkii soo dhigay sabab ha u ahaadee waxaan ku leeyahay waa ina wada saamaysay waa ina wada taabatay waa ina wada xanuujisay waa arrin murug leh waa arrin laga argagaxo bal ka waran hooyo bal ka waran aabbo labadii waalideena dhala quruxda badnaa markay dhibaatada la kulmaan ee arkaan inantaadiba sidaa intay iyadu waxaa samaysay haddana qofkii ay ku kalsoonayd ay u dirtay maxaan ku raadin social media uu soo dhexgeliyay uu doqon walba intuu maanta qaado uu heesas soo daba dhigayo leeyahay waa lagu gurmanaya war beenta naga daaya beenta faraha badan haddaad sharafteeda rabtaan haddaadna jeceshihiin gabdhihiininahay kuma ciyaarteen sharafteeda waxaan taa u leeyahay hamoodina inamada Soomaaliyeed intaan wada qabto aan eeda wada saaraya aynu qurux maxaa ka leedahay wallahi oo billahi oo tullahi hooyadii abi Allah ii qaada ku hay dib indhaalaga si kaasada arklay askari duuyo qori wati kitaab ila ku duulay ha idilana duro kow aksina سماها روحي حوين نعم هايستاهي waxaan eeda saaraya kuwa doqmaha ah kuwa laga argagaxay kuwa la nacay ee naftooda nacay ee gabdhihii Soomaaliyeed doonayeen inay sharaftooda ku ciyaaraan waxaan leeyahay xagan walaashay Cayuuni kaliyaata ma saaray dambigeed war inaan walba Soomaaliyeed
ninkaad la hadlayso war ciddaad la hadlayso war ka taxadir ceeb intan noogu filan hadday dhacdo inaa gabar kale social media la soo geliyaan ceebtaasi inagaa usii bareernay arrintani waa arrin qof walba oo damiir leh damqaysa war maxaad saa u samaysa ilaaha kugu dhaariyey maalinka lagu ogaado war maxaa ceeb kuu dambeyn doontaa maxaad ku noolaan doontaa sidee baana noqon doontaa noloshaada dambe haddaba arrintani arrin maanta cayuunaynu taala maahe waa arrin inoo taala bulshada Soomaaliyeed dacalka dacal meelay ku nool yihiin oo dhan Soomaali meelay ku noosho dhan waxaan leeyahay anigu hiba haddaan ahay waan ogahay inay qaldantay gabadhaas laakiin waxaan oran lahaa gabadha ha loo kaco ha loona soo qabto wiilka saa sameeyey waa ku dhaarteen ha la horgeeyo maxkamad hana looga jaro ninka saa sameeyey sababtoo ah gabdhaha Soomaaliyeed waa qaali waa dahab waa hooyo macaan waa walaasha waa dhashay way kula dhalatay sideebaad ugu badheedhay inaad qaawiso maxaa sababay xataa hadday iyadu kuu soo dirtay kalsooni ay kuugu soo dirtay maxaa sababay ceebteeda inaad banaanka keento wallaahi bilaahi tallaahi markaan arko dad soo dhigaya maxaan ku dhahdaay clipkaas iyada laga hayo wallaahi argagax baa igu imanaya mana awoodo maanta aniga xagga niga tuso wallaahi ma awoodo sababtoo ah gabadha walaasha ay dhibaataysan iyo anigu isku mid ma nahay qofka la dhibaateeyay anigu isku mid baan nahay sababtoo waxaan wadanahay gabdha Soomaaliyeed diin wadaaga af wadaaga dhaqan wadaaga حتى وقش أنا ولا شيء حتى سوقش حاش رفتادي هذا دعوة علي إلها وحن كعبة بريا دبعت ذاك سوق علي أنا كعافية قفي ساسميو أدين إلها وحن كعبة بريا أبتاح ماذا أتصميسي إلها مكاشرة إن وحن هذا وحن هاي حديب وفيديو جني وياهي مد إياه عايز كدوبتي ولا شيء واسكو قلدنتي haddii uu yahay mid adiga lagaa duubayna walaalkii kaa duubay ilaahay baa kaaga jaraya waxaan u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed quruxda badan daymanka walaalahaya walaashaya hooyadaya habareetay eedadaya aniga ah anu soo wada dhalanay walaa waan baraya wanoogahay inamadu inamadeen yihiin dadku dadkeena yihiin jacaylkeena yahay laakiin waxaan dhihi lahaa intaad isqaawisaan jirkiina quruxda badan qayb kamid ah هو ترنينا ماذا وعيب نكاجي معهم متذكرين حنيجا عد سنة إلهي درتي أنا جو أحيبه حنيجا درتي نيجا عد سنة فيديو كان كليب كان يرى كوبان الولاشين كهيسا ونيو دتك صوم على ذي هانشي دت أسطورة عيبه هو قرية ورنا تنكداية وركداية فيديو كان حركة يرى كليب أحنا تسي فافينيسين الدنيا دي ميل وبركتين وركداية وركي أركو بالليل وركي أركو طول وركداية ولا شيء كداية ولا شيء أو يا شيء عبادنا ولا البلا دلتي ولا البلا دلتي والله بيركا حنونيا إسكداية ده أنا بيركي حنونيا كو يدا الأشياء الناس اللي نقول إسكداية أنا ونوي حنونيا وأني بريا أصحاب حدا يقص ميسان مدة Soomaaliyeed aad ugu sameeysan gabadhan ka daaya fiidiyoogeega dhilayda war inta views ku raadinaysaan iyo viewskiina meel xun nala galin gabadhan waa walaashin astura ilaahay soo dhiganay astura ilaahay wuxuu ninka walaalkii ceebtiisa astura aniguna isaga waan astur walaalka waxaan leeyahay intaynu video lamida ku kulmi doono saa inabad geliyo